بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabta qiimaha badan leh YouTube channel-ka daawanaysan waa iga official magacaygu waa Cabdishidiga ku soo dhawaada muuqaal cusub. saaxiib inaad yeelataa waa lagama maarmaan isla markaana waad u baahan tahay waxaad kaloo u baahan tahay inaad samaysato cid aad waayahaaga iyo waqtigaaga la qaybsato waana lagama maarmaan inaad haysato cid aad ku sir qarsato isla markaasina qayb ka siiso waqtigaaga balse waa kuma saaxiibka wanaagsan ee qayb ka noqonaya noloshaada waa kuma cid aad qayb ka siinayso waqtigaaga maxay yihiin astaamaha aad ku xulanayso shakhsiga wanaagsan ee saaxiibka ka dhiganayso videogan waxaan kugu soo gudbinayaa haddii la dhaahdo qodobo dhowr ah oo aad ku xulan doonto isla markaana aad ku raaci doonto saaxiibka wanaagsan gabagabada videogana waxaan ku eegi doonaa asxaabta xunxun ee aan ahayn inaad la rafiiqdo ama aad qayb ka siiso waqtigaaga aynu ku bilowno astaamaha wanaagsan ama saaxiibka wanaagsan ee ay tahay inaad raacdo saaxiibka wanaagsan waa inuu noqdaa mid markasta ku dhiirigeliya isla markaana ku dareensiiya inaad gaabis tahay oo aad ka gaabinayso nolosha ka gaabinayso cibaadooyinka isla markaana ku calaamadiya ama ku jeexa bar aad doonayso inaad higsato waa mid ku dardargeliya isla markaana aan marnaba ogolayn inaad isdhigato waa mid aan ku odhanaynin guulayaad gaadhay waa mid aan ku odhanaynin waad dadaalaysaa waa mid aan ku odhanaynin horumar ayaad samaysay balse markasta waxa uu kugu dhiirigelinayaa oo kugula talinayaa inaad yoolkaaga iyo himiladaada ka midho dhaliso waxa uu ku calaamadinayaa meel ay tahay inaad gaadho isla markaana markasta waxa uu kugu dhiirigelinayaa inaad fadhiga ka kacdo oo aad halkaas soo taabato oo aad soo gaadho marnaba wuxuu ka soo horjeedaa inaad isdhigato saaxiibka wanaagsan sidoo kale ma aha mid ay dhibayso ammaantaadu saaxiibka wanaagsan waa mid markasta ku farxaya inuu saaxiibkii horumar gaadhay inuu horumar sameeyey inuu horumar la taaban kara sameeyey inuu meel gaadhay waa mid ay ammaantaadu farxad gelinayso waa mid ammaantiisa ka hormarinaya ammaantaada waa mid marka lagu soo qaado aan ka xanaaqaynin isla markaasina aanay dhibaynin ama aanay gubaynin ammaantaada waa mid maqli kara dhegaysan kara in guulaha aad nolosha ka gaadhay laga sheekeeyo horumarka aad samaysay laga sheekeeyo saaxiibka wanaagsan waxa uu leeyahay dabeecad wanaagsan waa uu ku dhegaysanaya isla markaasina waxa uu ku ogolaanayaa inaad afkaarta isweydaarsataan kaagama luminayo waqtigaaga kaagamana qaadayo hadal maalayacniya dood aan gabagaba lahayn isla markaana inuu keligii wax kuu sheego ma jeclaysanayo balse markasta waxa uu doonayaa oo dhiirigelinaya inuu adiga waqtigaaga ku dhegaysto saaxiibka kiisa ku dhegaysta waa saaxiibka wanaagsan saaxiibka wanaagsan waa kan markasta kugula dardaarmo oo aad kala tegaysaan cibaadada iyo cabsida Alle waa saaxiibka kuu jiheeya kuuna jiida dhanka Alle markasta oo aad kulantaan waa saaxiibka ku xasuusiya weynida iyo cadamada Allah subhanahu wa ta'ala nimcooyinkiisa kula xusa isla markaasina kugu dhiirigeliya oo mar walba kuu sheega khayraanad hore u samayn jiray saaxiibka wanaagsan waa kan dhanka masaajida kutubta wanaagsan wacyiga ku jiida iyo wacdiga aan idhaahdo ku jiida saaxiibka wanaagsan markasta waxa uu jecel yahay inuu naftaada la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay naftiisana waxa uu ka horumarinayaa naftaada inaad adigu guulaysato ayaa macno u samaynaysa sidaa la ajrigeed haddii uu isagu salaadaha 5 masaajidka ku ilaaliyo wuxuu jecel yahay inaad adiguna ku ilaaliso sababtoo ah ma jecla keligii inuu guulaysto balse inaad labadiinuba wada guulaysataan ayaa uu doonaya saaxiibka wanaagsan waxa uu ka dheeryahay dhammaanba arrimaha xunxun ee ay ka kow tahay balwada mukhaadaraadka iyo waqti luminta xanta dadka iyo isla weynida ama kibriyaaga waxaan loo yaqaano saaxiibka wanaagsan intaa midna ugu iman maysid uguna soo hagaagi maysid saaxiibka wanaagsan markasta waxa uu jecel yahay inuu arko walaalkii oo qurux badan saaxiibka wanaagsan markasta waxa uu jecel yahay inuu arko walaalkii oo horumar gaadhay saaxiibka wanaagsan waxa uu ku farxayaa hebel oo saaxiib ahaydeen ayaa maanta wax noqday hebel oo saaxiib ahaydeen ayaa heerkaa gaadhay halka saaxiibka xun uu ku farxayo hebel oo wax hiigsanayay
ayaa uu salaankii la soo dumay isla markaana dabada dhulka ku dhuftay noloshana ka dhacay waa saaxiibka xune ilaahay nagama dhigo asxaabta xunxun sidoo kale waxay inta badan waqtigooda ku lumiyaan xanta dadka way isku imanayaan maqaan bay wada fadhiisanayaan waxayna ku xamanayaan oo ay ku burburinayaan bartaasi dad walaalahooda waxay cunayaan hilibka walaalahooda waxa ay ka fogan yihiin oo ay inta badan waqtigooda ku luminayaan wax ka sheegidda walaalahooda oo ka maqan haddii aad la fadhiisato saaxiibka xun ee xanta badan leh waxaad ogaataa oo aad ka dhigaysato xantaasi beritolena adiga ayuu wax kaa sheegaya iska daa beriye isla minidka aad ka dhaqaaqdo waxaa macquula inuu adigana wax kaasii daba sheego waxa uu intaa uruurinayaa oo ku fogan yahay xumaanahaaga negatifekaaga waxaa loo yaqaano ayaa uruurinaya si uu dadka kale ugu sheego fursadna ay ugu noqoto waxyaabaad ka gaabiso ayaa isaga macno u samaynaya waa saaxiibka xune sidoo kale saaxiibka xun waqti lumiska aabihii weyaan inta ugu badan waxa uu jecel yahay inaad makhaayad iska fadhiisataan inaad ka wada sheekaysataan ciyaaro aflaam iyo waxyaabo maalayacniya ma jeclaa haddii aad ku tiraahdo ina mari soo tukanay waxa uu ka odhanayaa weli lama eedaamin aqiimkaynu tegina amaba wuxuu ku leeyahay waa cishaayigiyo ma tagee hadhow ayaynu soo qalaynana halka saaxiibka wanaagsan uu ku leeyahay let's go to pray ina mari aan soo tukane waa la eedaamay maxaa kugu dhacay ina mari aqiimkii waa la gaadhay soo weysaysana miyaad weyse qabtaa miyaad xidhiidhisay waalidkaaga maanta ka waran familigaaga qaraabadaadii goormaa kuugu dambeysay markasta waxa uu kuu jidaynaya oo uu kaaga tallaabsanaya wax wanaaga horumaraanad adigu samaynin ayaa ku xasuusinaya waxyaabaad adigu ka gaabisay ayaa ku isku dayaya inaad adigu samayso oo uu ku baraya waa uu ku carinaya saaxiibka wanaagsan okay saaxiibka wanaagsan waa uu ku carinaya dadka xunxun ama asxaabta xunxun sidoo kale waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah waa dad ay aqoontu sida qalloocda u gashay waa dad wax bartay laga yaabaa laakiin aqoontu sida qalloocda ayay u gashay aqoontu uma siyaadisa saaxiibka xun ilaa isla weyni mooyaane ilaa isqaadqaad mooyaane ilaa kibriyaa mooyaane kibirkuna allah subxana watacaala keliya ayuu u sugnaaday waxau leeyahy ilaahay subxana watacaala xadiis ulqudsi kibirku waa shaarkayga cidda igu qabsatana naar ayaan ku abaalmarinaya okay marka aqoontu waa inay humbleness ku kordhisaa ama tawaaduc iyo isdhuldhig waa inaanay kuu kordhinin isqaadqaadid isla weyni iyo kibir ku kordhisaa inaad qof weyn noqoto oo caqliga qaangaadhka ah saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun waxay ka dhigan yihiin siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida nin moofo haysta oo mar walba qulunka iyo xaabada iyo dabkaa ku dhex jira iyo qiiqaas iyo mid xaamilul miski ah kuwan cadarada ugu udgoon iyo biyo ka mid ah saaxiibkaa xun ee moofada haysta haddii aad kaaga dhawaato den dabkiisaa ku gubaya qiiqiisa indhaha kaa gelaya amaba dee dharkaaga kaaga gubanaya oo qiiq iyo uuro iyo samboor baad ka qaadaysa halka saaxiibka wanaagsan ama cadarkiisa uu ku siin doono ama aad ka iibsan doonto amaba uu kuu marin doono haddii jeerna aad udug kaaga dhowdahay hubso oo dib ugu noqo liiska saaxiibadaada ma yihiin kuwa wanaagsan ma yihiin kuwa markasta kugu dhiirigeliya dhanka wanaagga kuu jiida dhanka horumarka islamarkaana kulan kastood la qaadato aad wax ka faa'iido aanad hore u aqoonin mise waa kuwa ku fogan sidii ay dabada ku hayn lahayeen iyagoo kuu muujinaya inay yihiin kuwa kuwa wanaagsan iyagoo kuu muujinaya inay wanaaggaaga ka shaqaynayaan miyay dabada ku sii hayaan miyayna jeclayn inaad horumar gaadho miyayna jeclayn inaad iyaga ka horeyso ood ka horumarto fideogeer waxau ina xasuusinayaa gabagabadii inaynu liiska asxaabteena ku noqonno kala shaandhayno hubsanana cidda aynu waqtigeenna qayb ka siirano ku mahadsanin daawashadaada haddii aad channelka ku cusub tahay inaad subscribe garayso ayaan kaa codsanayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu